doorkaygu wuxuu ku kooban yahay inaan si buuxda u soo dhaweeyay dhammaan mas'uuliyiinta halkan isugu timi kulankeennan aynu labada cisho wari doono oo ahamiyad gaara inoo leh aad baan markaa idiin soo dhaweynayaa iyo howlwadeennada oo aan u mahad celinayo xafiiska iyo guud ahaan dowladda oo maalmo fara badan ka soo baaraandegayay mowduucyada iyo mataqaanaa barnaamijyada ayna soo hordhigayaan oo hawl fudud aan ahayn aad baan xogogaal ugu ahaa habeenada badan ay soo jeedeen iyagoo weliba waajibaadka kale qarankana aan fulinay in yar baan anigu waxaan ka oranayaa horta caam ahaan marka kambani yar la furayo oo 100 qof 300 qof ay ka shaqeyso ama wax ka yar maalmo badan baa la fadhiyaa barnaamij baa la dejistaa xeerar baa la samaystaa oo lagu shaqeeyaa waa kambani yar oo laga yaabo inuu wax yar iibinayo laakiin dawlad la rabo inay 12 milyan u taliso oo waliba il daran duruufo ku hareeraysan yihiin abaaro waayo adag soo kabanaysa lagama maarmaan weeye inay jaanta iyo jiibta isla hesho qorshayaal wax ku oolana dhigato sida aad ogsoon tihiin dhammaantiin laga soo bilaabo ra'iisul wasaaraha markii la magacaabay ilaa madaxweynaha markii la doortay hawlo waaweyn baa markiiba aynu hore ka galnay gurmadka abaaraha intaasoo shir baan wasiirro kala duwan wada galnay oo gurmadka dadkii ku waxyeelobay amni darradii dhacday qabashadii imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada waa inta yareedaynu magacawnay inta ina sugaysa ee ballaadhan waad sawiran kartaan marka waxaa waajiba inaynu hadaf guud aragti guud lahaano dowladna sharci ayaa sal u ah waxa sal u ah siyaasad ay dejiso waxa sal u ah xeer hoosaadiyo iyo nidaam lagu shaqeeyo inahaasaynu isla meel dhigaynaa waynu u weel tolanaynaa hawsha weyn inay hortaalla